السلام عليكم. تاريخ ذي إمام بخاري قيبتي اللبات كهذا الكحفظيسي بخاري وحو حفظيي أو دوشا كقيبي سدح بقل أو كن أو حديث بقل كن أو كمذا أي صحيح وضتهي لبب بقل أو كنا أن صحيح أهين waxaa xifdiga u dheeraa fahamka iyo garashada axaadiista wuxuu ku xeel dheeraa lifaaqida iyo tafatiridda axaadiista marnana ma suuroobi jirin in imaamka hadalka nebiga sallallahu alayhi wasallam la isku daba mariyo muxaddisiintii reer Baghdad ayaa isku qasay mutuunta yacni lafdiga iyo asaanida سلسلة أحاديثتا وحينا اسكوكو قسين بل سئي أهبصدان قطدا يقنت قرشد بخاري أو أوليه علمي حديثتا مركي مخلين إنو بغداد كسو صعدو وحي أقبتين حلفت بلاران أو اللقسو دوينيي أو أي كسو قيب قلين علمدي أحاديث ترير بغداد sidii qorshahu ahaana waxa Bukhari loo soo bandhigay boqol xadiis oo kas loo marooriyay ula kacna la isku daba mariyay sidii lagu yaqaanay imaamka intuu miyir u dhageystay buu mid u dhiriyay asaanidoodii saxda ahayd maroorkii ku jirayna ka saaray mar labaad buu ugu celiyay boqolkiiba isagoo sidii saxda ahayd ee nabiga sallallahu alayhi wasallam looga wariyay u qaada dhigaya ilaahu ku xifdi sidaad u xifdisay warka nabiga sallallahu alayhi wasallam dhacdadaasi waxay muujisay xeel dheeraanta aqoontiisa حفظيسا iyo garashadii cilmiga xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam Bukhari wuxuu u adeegsaday inuu ku ururiyo inta ugu saxan uguna hubsan ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam kuna qoro hal kitaab Bukhari wuxuu yiri xadiis kasta oo ku qoray kitaabkayga laba rakac baan u tukaday Allah baan kala tashtay yaani uu istiqaaraystay sixadiisana waan hubsaday waxay ku qaadatay 16 sano inuu ku dhameeyo qorista kitaabka caanka ah ee uu garanayo qof kasta oo muslim ah oo diinta wax ka yaqaana markuu dhameystiray wuxuu u bandhigay Ahmad ibn Hanbal Yahya ibn Ma'in Ali ibn Madin iyo rag kale kulligoodana waxay qireen kitaabkiisa sixada iyo sugnaanta arintaasna waxay noqotay ficil aad loo mahadiyay nafcigiisa iyo waxtarkiisana maanta la qirsan yahay wuxuu yiri imaamku waa xujo aniga iyo Allah noo dhaxa waxa uu noqday kitaabka labaad ee ahlu sunna soo daliishadaan marka laga yimaado quraanka kariimka ah qaar baa ka cabanaya xifdiga hadaba kan doonayo inuu wax xifdiyo ka harmaca sida qaar baa markaad dhahdo sideen wax u xifdiyaa ku tirinaya nimcatul fushuukh badan timir iyo caano isku cab shaha cagaaran qac ka sii waxaas iyo waxaas cun waxaas iyo waxaas cab hadaba waxaad tirinayso Bukhari ma haystay waxaad sheegayso boqolkiiba 80 waa run si waxa ka horeysa inaad macaasida ka harto Imam Shaafici markuu uga cabanayay barashada cilmiga sheekhiisii Wakiic wuxuu yiri شكوت إلى وكيع سوء حفظي وحان أشيكتي شيخي وكيع حفظي جيجا يا علمي برشديدو إلي ليدتو فأرشدني إلى ترك المعاصي وحو إيشاقي إن معاصد كهرو وأخبرني بأن العلم نور وحو كلو إيشاقي إن علمي النور يهي ونور الله لا يهدى لعاصي نورك إلهينا لمصيو قف عاصيا
هذا الكن وحادها يا إمام مالك وحان لقودها يا إمام الشافعي أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا وحان أجيذا إنو الله قلبك كتوري أو قليي نور إمام الشافعي فلا تطفئه بظلمة المعصية نورك هكو بختين أو هكو دمين معصية